الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo isbedelka degmada Hodan. runtii oo ugu horeyso Dab Tower. waxaan rabaa maxuu isbedel ka sameeyay Dab Tower dalkeena dhaqaalaheena muxuu ka sameeyay gobolka Banaadir muxuu ka sameeyay degmada Hodan. runtii degmada Hodan sida ogtihiinba waa degmo dhaqaalo iyo horumar sida darteed tan iyo markii lagu soo kordhiyay Dab Tower degmada Hodan waxaan dareemaynaa isbedel. maxaa isbedelay? Dab Tower waxay ugu duwan tahay dhismayaasha kale ee laga hirgeliyay ama apartmentooyinka kale waxay ugu duwan tahay waxay bilaabeen oo hantidooda ku aamineen guriga ugu horeeyay oo dhismaha intaas leeg oo intaas soo dabaq leeg oo degmada Hodan laga hirgeliyay ayuu noqdo. taas waxay keentay kalsooni. maanta maxaa degmada Hodan ka socda? waxaa ka socda ku dhawaad 105 apartment iyo ku dhawaad 100 oo guryaha dabaqyada ah iyo 20 moolal ah oo suuqyo laga rabo iyo horumar kale oo dhinacyada kale oo dhaqaalaha ah dukaamo oo international bangiyo iyo wax kale isbitaalada jaamacado oo dhamaantood dhismayaal ah. Dab Tower marka kordhinta ay soo kordhisay maanta shaqadaas iyo isku dubaridka shaqadaas ayaa waxay keentay kalsooni shacab. annaguna haddaan nahay maamulka degmada Hodan iyo ciidankooda ammaanka waxaan ku faanaynaa inaan dhammaan ammaankaas sugnay inaan u fududeynay in wax kasta u baahan yahay oo guryahaas u baahan yihiin oo maalgashadaashaas u baahan yihiin inay naga helaan si ugu dhaqsiyaha badan oo u gaaro adeegay u baahnaayeen. runtii waxaan rabaa shirkadda Dahabshiil Group inaan uga mahad celiyo si gooni ah aaminaadda ay nagu aamineen haddaan reer Hodan nahay guriga ugu dheeraa Soomaaliya inuu leeyahay degmada Hodan meesha laga hirgelinaa. waxaan rajay doonaa shacabka Soomaaliyeed inay shirkadda Dahabshiil Group aaminaadda ay aamintay dadkooda ayaguna ay aaminaan. waana ku ammaanaa already in dad badan oo ay qaybtii ugu badneed ay ka qaateen suuqaas ganacsiga iyo apartmentooyinka iyo xafiisyada loo diyaarshay inay qaybta ugu weyneed ay qaateen. waa uga mahad celinaa. waxaan rabaa Dahabshiil Group inaan idhaahdo faan noola far kama qodnee degmada Hodan waa degmada ugu dhaqaalaha badan ugu populationka badan. waxaan rajay doonaa inaad ka hirgeli doontaan midkan ka sii dheer iyo suuqyo kale iyo investment kale ayaan idinkaga fadhinaa. annaguna waxaan diyaar u nahay aaminaadda aadna aaminteen haddii aan nahay dowladda Soomaaliya gobolka Banaadir iyo degmada Hodanba inaan meeshaas ka sii wadi doono oo wax badan oo wada shaqeyn ayna dhex mari doonaan insha Allah. marka waxaan rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed inay u mahad celiyaan shacabka degmada Hodan shacabka gobolka Banaadir Dab Tower